dayax dal nuurshe alfanaan mar walbana waxa uu heegan u yahay inuu caawiyo dadka masaakiinta meel walba ay joogaan shalayna waxa uu ka mid ahaa maantana waxa uu ka mid yahay wuxuuna ka sii mid ahaan doonaa caawinta dadka masaakiinta ee wax ku yooloobay qaraxii soobe ka dhacay dayax soo dhawo waa dhawaha walaalkay yuusuf waana kaaga mahad celinayaa codka ISIS waa tahay dayax bal ka waran musiiba dhacday musiibadii dhacday kulli waa wax qornay ahayd sidaad ula tacaamushay iyo sidaad adiga ka ahantaada garab aad u siisay ummadda Soomaaliyeed wallaahi anaga saaxiibo wax badan ma awoodno oo ilaaha awood iska leh lacagna dee waa nagala badan yahay oo maanta garabka aan dhiibi karno waa nagala badan intaan ka badan haddaan haysano intaan ka badan iyo malaayiin haddaan haysano waa dhiibi laheen oo sida ilaahay rasuulkiisna la ogyahay waa inta aan tabarteena aan fuulnay laakiin yacni waxaan sameynay isku daygeennii ugu wanaagsanaa waxaad booqatay xarumo kala duwan oo caafimaad ah booqatay waxyaabo badan ee indhaha way qabteen dayax marka la eego oo calool xumaa bal waxyaabihii kugu darnay marka والله horta wax wanaagsanaa ma jirin wax daran mooyee wax yani normal xitaa ma jirin marka de wax aan gaar u ku xusi kara ma jiraan laakiin de anagoo dhan waa ognahay inay hawshu daran tahay in badan ay jiraan dad badan oo ganacsiyada ay jiraan si lamida fanaaniin adigu kala mid ay jiraan maxaad ugu baaqaysaa والله ganacsatada ilaahay horta ganacsiga waa u duceeyay nabigeena u duceeyay sallallahu alayhi wasallam ilaahay waxaan leeyahay idinkana ha idin barakeeyo waa u duceynaya waxaan rajeynayaa inay qayb ka qaataan barnaamijkan dadka ganacsatada inta ugu badan lama faro inay ka qayb qaataan barnaamijyada noocan oo kale masiibooyinka ah ayagaan aaminsanahay inay iga sii jecel yihiin fanaaniintuna de waxaan leeyahay saaxiibadeeyo waxaan baaba'ay waa dadka aad wax ku tihiin waa dadka idin dhageysto waa dadka maanta magaca leedihiin idin yeelay waa dadka u baahan tihiin shalay marka aad magaca u baahneedeen shalay marka sumcad u baahneen shalay marka u baahneedeen in kor la idin qaado oo hebel la idin dhaho waa dadka idin dhahay waxa baaba'ay marka de waanan aaminsanahay fanaaniinta especially de fanaaniinta qaar inay maanta wax weyn karin ma fahanti يعني إلهي بقى وحوين كرين أو يعني واجران ده وحيسن لكن most of them ده كده اللي يرضى عوادض وحصو قلان مركز وحامل سنة هاي كي قلبي جيسو ونكسني هاي إن على فرينين أو ما أنت حمدي بلن بواجوكتا أو ولا شيء أنا جنا واجوكا مركز فرين أنت أسكدر أو الله فري لها أو ما أنت محل لا إيش ما جرتو فنانين توحان لها هاي ده كحكوتين ويواد حام بابا أصلا ولا ليالو قيب كسوقات برنامج كان قفل باب دنتيس أنتو شخص جيس أنتو سكو أبابلو waxa uu qabto dadkan soo wax uu weelin karo fanaaniintu waliba de waa ugu awood badan yihiin yani waa ugu fiican yihiin marka isku tagaan waxay bixin karaan waxa ugu wanaagsan aha marka aad oo maasantahay ajri xasanaad la soo koobi karin ee baakaas iyo tawrucaada sameeyay waxa jira ma taqaana fiir aniga hadda marka laga fiiriyo shakhsigayga waxaan ku bixiyay waxa ka badan afar jibaar waxa noqotay magacayga kaliya waxaan ku keenay marka ayagoo xitaa jeebkooda waxa ka bixin waxay sameyn karaan magacooda inay dadku ugu adeegaan marka arjeena inay wax qabtaan dayax aad oo maasantahay boqolkiiba boqol aan kaaga mahad celin doona ummadda Soomaaliyeedna meel weyn ayaa kaga taala mar walba ajri xasanaad la soo koobi karin ee baakaas iyo ajirkii aad shaqeysatay wax walba waxay nagu waajib waay qof walba wuxuu awoodo ugu caawinaya walaalihiis masaakiinta si fiican aad oo maasantahay waa waajib qaran insha Allah thank you insha Allah aad oo maasantahay